bismillahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtaan fariintani waa mid ku wajahan guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee khayrka jecel halkani waa kaamka Allaale ee degmada Galdogob waxa laga yaabaa inaad daawateen warbixino badan iyo barnaamijyo badan oo hadda ka hor aanu idinkaga soo duubnay si aad u aragtaan xaaladda iyo nolosha ka jirta halkan dad badan baa isla rooba baada'ay wadankii waa lagu khayray nimca dhacday alxamdulillah rabbil caalamiin waa ay jirtaa roobabkii waa ay da'een hase ahaatee dadka halkan ku noolay waa kuwii ay xooluhu ka soo dhamaadeen duruufaha adag kaga yimid halkii ay horay ku noolaan jireen oo abaartu ay ka soo barakicisay waxay iminka joogaan deegaankan oo la yiraahdo Allaale kaamkan waxa ku nool 380 qoys oo badidood ay xoolihii ka soo dhamaadeen mana jirto cid isku xilqaamtay ilaa iyo hadda marka laga reebo dad Soomaaliyeed oo dibadaha ka soo caawiya annaga hadda halkan waxaan keenaa maalin walba 143 qoys oo dadka kaamkan degan kamid ah afurkooda raashin ceeriin oo maalin walba aan u keenno si ay u karsadaan oo ay ugu karsadaan afur iyo suxuur ayaanu sameynaa alxamdulillah rabbil caalamiin barnaamijkaasi meel fiican buu maraya waxaana naga caawiya urur Soomaaliyeed oo ka shaqeeya samafalka kaas oo lagu magacaabo Somali Network Relief of North America waqooyiga America ayaa ururkaasi ku yaala waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo meeshan biyo joogto ah ma ay hesho waxa ku taala barkadaasina dad Soomaaliyeed oo khayrka jecel ayaa ka bixin jiray marba sida ay u awoodaan biyaha saakay markii aan mid waxa la ii sheegay in biyo aysan oolin oo dad badan oo halka ku nool inaysan helin waxay ku weysaystaan iyo sidoo kale xilliyada soo socda ee afurka u diyaar garowgiisa biyo wax lagu kariyo ma yaalaan mas'uuliyiinta kaamkan joogta oo inta badan deyn ku soo qaadi jirayna waxay ii sheegeen ilaa 13 booyadood oo biyo ah in halkan lagu leeyahay dadkani waa dad Soomaaliyeed waa dad u nugul baahiyaha nololeed ee halka ka jira waana dad u baahan in la garab istaago waliba si dhow loo garab istaago fariintaasi waxaan u maleynayaa waa inay gaari doonto guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee khayrka jecel bisha barakeysan ee Ramadaanka waa bil cibaado waana bil khayr wixii aad awoodaan ku soo caawiya walaalihiin waa mahadsantiin